xidigaha dusheeniyo rajadaya xaqaybsaday ka habsanay dunidu inaga uu dambayne ka habsanay dunidu inaga uu dambayne calankeenan daashagay miyay dambareen bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii maanhadal toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa dhibaatada dhinaca shaqola'aanta ee haysata dhallinyarada ku dhaqan gobolada puntland tallaabooyinka ay muhiimka tahay in la qaado si dhallinyaradu ay shaqo u helaan iyo fursadaha shaqo ee laga heli karayo puntland waxaana jirta daraasad kooban oo uu dhowaan diyaariyey shakiib dhowre oo ka mid ah aqoon-yahanada ku nool deegaanada puntland islamarkaasna madaxa ka ah kuliyadda barashada cilmiga duulista oo ku taala gobolada puntland waxaana barnaamijka igala qaybgelaya suldaan cabdisalaan suldaan maxamed shakiib dhowre yaasiin cabdisamed maxamed toreeye cabdirasaaq baraag iyo weliba maxamuud cabdulqaadir dhammaantoodba waxay ku sugan yihiin magaalada gaalkacyo ugu horrayntiiba waxaan rabaa inaan shakiib dhowre oo isagu daraasaddan diyaariyey in aan weydiiyo shakiib bal waxaad ka warantaa daraasaddan diyaarinteeda iyo waxyaabihii kugu kalifay bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciin jamaalow salaanka bacdi waxaan salaamahayaa marka hore dhammaan dadweynaha dhegaysanaya barnaamijkan iyo daljir radio daljir iyo dhammaan shaqaalihiisa daraastan waxa waaye daraas aan samaynay oo aan ku samaynay duruufo jira oo guud ahaanna laga soo ka jira puntland gaar ahaanna hadda aan ka bilownay magaaladan gaalkacyo oo aan joogno daraasaddaas waxay ku salaysan tahay puntland ma shaqo la-aan baa ka jidha mase baahi shaqaale loo baahan yaha ka jirta shaqo la-aantaas waxaan ku dareennay markaan aragnay dhalinyaro badan oo tuuran huteelada iyo makhaayadaha hortooda dhammaantood taleefanno qaaliya haystaan dhammaantood laga yaaba 8 saac ama 5 saac inay meesha fadhiyaan aynan una diyaarsanayn inay shaqo qabtaan markii aan aragnay arrintaas aan dadkaasna iswaraysanay waxaa noo soo baxday inay jidho aragtiyo aada u kala fog duruufo aan isu dhoweyn inay isu yimaadaan iyo danta guud oo xaqiiqada jirta oo laga boodayo oo ay dhallinyaradu ka boodayaan waxaan kaloo arrintan daraasaddan nagu dhaliyay inaan samayno sheekooyinka waalidiinta iyo bulshada guud ka dhex guuxahaya tiiraanyada iyo uurxumada waalidiin badan oo ubadkoodii uu tahriibay oo dhuljiif iyo niman magacyo kale loo sheegayay intay jidka ka qabsadeen ay yidhaahdeen ilmahaagii waa haysanaa 10,000 iyo in ka badan baa lagaa rabaa haddaadan ku furanna ilmahaas isagaa ka samir waarid sidaa la yidhi waa garan karnaa oohintiisa iyo wareerkiisa waa garan karnaa dhallinyaradan ayada oo makhaayadaha fadhida waxay ku dambaynaysaa ama ay taleefanada runtii beer salaaxa ah ay ka wada baarayaan waxa waaye ayaguna inay tagaan ay duruufahaas maraan waaridkii guryaha yaryarka ayaguba duruufo ku dhistay in la yidhaahdo berri soo gada shaqo la-aan haddii ay ku sii jiraan oo hadda ay meeshay marayaanna ay joogaan haddaan wax laga qaban waxa weeye waxay keeni doontaa dhibaatoba weyn waxaa kaloo arrintan nagu dhaliyey dhallinyarada sanad kasta tarmaysa ka soo baxaysa iskoolada oo sanad kasta sanadka ka dambaysa soo badanaya oo aan helin 10% inay shaqeeyaan waa in loo jeheeyaa jaamacadaha kuwa ka soo baxay iyo kuwa kaleba waa in loo jeheeyaa qaab ay ku shaqaystaan
oo aan ahayn xafiis la fariisto iyo rabitaanka ah in gaariyaal shaqada la isku geeyo. taasna waxa weeye oo ma suurtoobayso. waxaynan u suurtoobaynaa dadka soo baxaya iyo suuqa shaqadu intay qaadan kadho ayaa kala yar. ayadoo sida ay u jirto baan dhallinyaradii waxaynan u diyaarsanayn inay qaabtaan shaqooyinka dalka laga heli karo. shaqo waxa weeye waa shaqa macnaheedu waxa weeye inay kuu soo saadho dhaqaale aad ku sharfan tahay, aad ku noolaatid, aad waxa weeye meelna ku degtid. markaan arrimahaasoo dhan aragnay, waxa arrimaha ka sii dambeeya oo arrintan aad iyadana noogu riixay, ummad jiritaankeeda iyo horumarkeedu wuxuu ku salaysan yahay dhallinyaradeeda iyo xooggeeda soo koraya sida loo maareeyo. xoogga haddii aan la maaraynna waxa weeye xargo badan ayuu goynayaa. xargaha u gooyeyna waxa weeye dabar la-aan badan baa ka dhacaysa. dalka Soomaaliya tiradiisa waa naqaanaa, dadkiisa waxaa la yidhaahdaa waa 10,000, qaar baa ka sii yareeya 10 milyan. meelo badan oo laga sii yaraynayana waa arkay. laakiin dalkaas isaga iyo dadkiisa baaxadda weyn leh, aan ognahayna inuu leeyahay badda ilaa 3,000 iyo intaasoo ka badan kilomitir uu leeyahay oo xeebadeeda, uu daris la yahay dowlado hadday ugu yaraadaan markii dadkooda laysku daro gaaraya ilaa 150 milyan ay danaynayaan dalkan, ay saameyn weynna ku leeyihiin waxyaalaha dalkan ka jira. arrimahaasoo dhan markaan soo ururinay ama aan aragnay, waxaa habboon intaan la gaarin arrimahaas ay ku kalifay. Suldaan Cabdisalaam, waad dhegaysatay aragtida uu Shakiib ku sareeyay daraasadan uu sameeyay dhinaca shaqo la'aanta. maxaa kaaga baxday? horta Shakiib aad buu ugu mahadsan yahay. Shakiib waa nin khabiir oo runtii dadka inagu tirada yar ka mid ah. mawduuca hadda uu soo bandhigayna oo miiska soo saarayna waa mawduuc loo baahnaa in la falanqeeyo mar horeba. arrinta shaqo la'aanta ahi ma aha wax ummadaha kale ka talaalan yihiin, Soomaalida gaar ku ah maaha. midowga Yurub oo kale waxay marayaan shaqo la'aanta waxay marayaan 27 milyan si Guardian qortay, oo macnaheedu yahay 12.5% dadka tirada guud ee Yurubiyaanka ah. Mareykanka wuxuu maray 17% oo ah macnaheedu yahay 20 milyan dad la eg inay shaqo la'aan yihiin. haddana saas ay tahay waxaana sida qoraagu uu ka dhawaajiyey, shaqo la'aanta dhallinyaradu waa miinooyin aasan oo mar uun ku qarxi doona ummaddaas ku qarxi doona. maxaa yeelay waxaa ka iman doona falal dembiyeedyaa ka iman doona, waxaa ka iman doona drop outs fara badan baa ka iman doona, waxaa ka iman doona qax iyo nusuux iyo yani inay waddankooda ka barakacaan baa ka iman doonta. waxaan aaminsanahay waa daraaso u baahan in si fiican loo sii falanqeeyo, in laga wada doodo, in laboratory la geliyo, in wax badan laga soo saaro bay u baahan tahay. arrinka aad ka muhiimka waa waxa weeyaan oo yani dhanka angalka kale oo ka fiirina waxay u baahan tahay contribution weyn oo ka yimaada in la sameeyo national policy ama siyaasad ummadeed oo qaran to her state oo مثلا Puntland oo kale mid Soomaali ah labadaba in la sameeyo oo looga hortagayo ardadaasi iyo dhalinyaradaasi inay shaqo beelaan looga hortagayo. arrinta kale meesha ku jirtana waxa weeyaan oo iyaguna mashaakilaad kale. marka hore qofka dhalinyarada ahi ma lihin siyaasad berri wuxuu noqon doono lagu sii design gareeyo oo lagu sii engineer gareeyo. qofkan doonayno 20 ilmaha maanta dhasha 20 sano kadib wuxuu inoo noqonayo shaqadu noo qabanayo ma sii design gareyno. ardayga xadaanaan geynaa, dugsi hoosaan geynaa, dugsi dhexaan geynaa, dugsi saraan geynaa, jaamacad baan geynaa, masters markuu soo laabto reerkii masaariif uga baahan yahay. maxaa yeelay marka dugsiga dhexe markuu marayo waxaa la rabay duruufta waddankeena ku xeeran inay educationkii iyo waxbarashadii ay ku dhex milan tahay, oo ah in farsamadii lagu dhex baro, kalaasyo uu qaato haddii rabbi ku idmaayo alxanka ah, kuwa furniture-ka ah, kuwa nadaafadda ah,
kuwa wax karinta ah hablihii kuwa bilicda ah waxyaalo fara badan inay la socdaan ardaygu markuu secondary ka soo baxo hadduu waayo xafiis uu ka shaqeeyo inuusan wadadii iyo magaaladii inteedii kale uusan ka waayin shaqadii anigu muuqaalkaas waa ii muuqda hadda waayahay iminkana waxaan siinayaa cabdisaaq tooreeye cabdisaaq bal aduu maxamed tooreeye bal aduguna aragtida kaaga baxay daraasadan بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما mahadsan yahay cabdishakiir iyo suldaanka daraasadatan haddaan akhriyey oo aan u dhuuxay oo aan u dhabagalay waxaan ka fahmay ama iiga baxday arrin mar hore sida suldaanku uu sheegay loo baahnaa in bulshada la dhex keeno oo bulshada lagu faafiyo oo laga dhaqangeliyo hadda ka hor waa arrin aad iyo aad muhiim u ah haddeerna haddii aan haddeertaan ilaahayna fahansiiyey oo qoraaga iyo wixii ragoo kale uu la kaashaday ilaahay uu fahansiiyey tilaabada hadda la qaaday in la wado oo aan laga harin ilaa ay midho dhasho heer dowladeed heer culummo heer siyaasi dhinac walba iyadoo lala kaashanayo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay billahi tawfiiq waayahay maxamed cabdisaaq محمد عبد القادر بسم الله الرحمن الرحيم أولا horta mawduucan waxaa weeye mawduuc oo muhiim jiddan ah weeye sababtoo ah in dadka dhalinyarada haddaan la mashquulinin waxyaalo waxa laga yaabaa farada xulxun inay ku kacaan oo sida tahriibka oo kale tahriibkana waa aragtay sida qaaradda Afrika iyo hadda wadamada Suuriya oo kale oo balaayadu ka jiraan waxa weeye way baday ku dhamaadaan marka waxa loo baahan yahay mawduucan waxa weeye bulshada in yani lagu baahiyo oo dhalinyarada loo yeero loo la fahansiiyo mawduucaniti in shaqadana damba waxay aham shay waxa la fiiriyaa waxa kabsiga iyo wax laga heli karo waxa ka heli karto mee shaqada ma kala xuma ay shaqo ka shaqeyso oo hadaad noqoto xataa nin hotelada iyo mubaashir yani dadka soo dhaweeyay waxa soo kale waa shaqada ma kala hooseyso oo yani waa isku wada mid laakiin waxa muhiim ah qofka bini aadanka sidoo nafsidiisa ku maareyn karaa oo de waxaanay uu meesha uga heli karaa wax yani inuu kabsi wax yani maal galin oo ka heli karo hadda aniga wala hadlayo Yemen ka imid waxaan soo dhameeyay laba baajulaan sita daraasad islaamiya mid kale waxaan sita culuum sharciya wal arabiya waan iska fadhiyaa soo hadda ninka sheegayo kale waxaan ku soo noqday waalidiinteeda dhax fadhiya ilaa hadda oo de ana le masruufaaba marka waa mawduuc muhiim jiddan weeyaan aan ku faraxsanahay dadkii soo abaabulana waan ugu mahadcelinaya jazakumullahu khayr waya aad baa masantaa cabdisaaq braag maxaa kaaga baxday warbixintan bismillaahir rahmaanir rahiim wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah sallallahu alayhi wasallam marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan u mahadceliyo idaacadda daljir oo fursadana siisay iyo shakiib dhowre oo daraasaddan sameeyey marka labaad ciwaanka daraasadda wuxuu sheegayaa Puntland shaqo la'aan inay ka jirto ma gaarsiisan tahay ha mise maya oo kale marka daraasaddaas sii dhexgalaysa laakiin aniga waxaa iga baxay Puntland shaqo aan habaysnayn waa ka jirtaa inay shaqadu qorshaysnayn Soomaalida waxay tiraahdaa aqoon xumo abaar ka daran wixii haddaad haysatid oo aadan sidii aad rabtay aadan u habeyn karin oo noloshaada ku soo baxaysay mushkilad weeye laakiin aniga waxaan u malaynayaa Puntland inaysan gaarin heerkii shaqo la'aanta ahayd waxaa bannaan shaqooyinka hoose oo qofka ku soo baran lahaa shaqooyinka iskuulladeennii baa macallimiin loola yahay oo dugsiyo hoose dhex waxaa looga doonayaa macallimiin gobollo kale kuwa maalin kasta la soo dhajinaya inay iskuulla u baahan yihiin shaqooyinka hoteelada bannaan iyo wixii lamid ah marka aniga waxaan is leeyahay shaqooyinkii way jiraan ayagoo aan habaysnayn oo si qaab daran isu dhex yaacsan taasi waa kow midda labaad waxa weeye haddii qorshe la'aanta jirta oo aynan kaariyerka saxaynin qofku ardaygu sida suldaanku sheegay marka u horeysa waa in loo diyaariyo wuxuu noqon doono jaamacaddan maalin dhaweed Yurub ku taala inaan apply gareeyo marka oo macnaha codsado markaas waxay yiraahdeen laba shuruudood kaliya aan kugu xiraynaa kow waa inaad horta Afrika u dhalatay labo waa inaad business administration baranayn waxaad arkaysaa dadka Yurubiyaanka way ogyihiin mushkiladan haysata ardadeena oo dhan waxa laga yaabaa 50% inay hal subject ka baxeen haddana markii ardadaas ay qalin jabiso ayagii shaqo ay waayaan macallin aan weyno waa mushkilad jirta marka waxaan u baahannahay qorshe ardada ka baxsan dadka kale oo waaweyn iyo dawladda iyo dadka kale inay la yimaadaan wax baahida suuqa ka jirta ardada in loo sheego marka ardayga secondary-ga u yimaado ka baxo la yiraahdo waxa loo baahan yahay 5,000 oo macallin iyo 4 qof oo business administration iyo 6 qof oo dhaqaatiira iyo dadkii laakiin aan hal meel la isku buuran hadhowna meeshii kale aan waxba loo waayino aan gobollo kale iyo dawlado kale loo doonanin sidaas aniga la tahay waya shakiib dhowre iyadoo nabadoon Yaasiin Cabdisamed oo ka mid dadka ganacsatada oo gadaal kaga soo beeri doono daraasaddan waxyaabo badan bay faahfaahinaysaa sida qoraalka ka muuqata ma jiraan fursado marka kuu muuqday oo shaqal dadku ay ka heli karayaan oo aad aragtay
بسم الله الرحمن الرحيم جماله waxa weeye daraasadan markaan bilownay oo arimihii aan ka soo hadalnay aan aragnay waxaan aadnay bal inaan ogaano shaqooyinka jirta oo aan ahayn xafiisyada magaalada ka jira waxaan noo soo baxday shaqooyinka hoteelada waxaa noo soo baxday shaqooyinka makhaayadaha waxaa noo soo baxay shaqooyinka nadaafadda waxaa noo soo baxay gabdhaha guryaha dadka uga shaqeeyo jaariyadaha la yidhaahdo waxaa noo soo baxay dhismayaasha iyo dadka dhisa guryaha waxaa noo soo baxay tubiiste waxaa noo soo baxay dadka korontada ka shaqeeya waxaa noo soo baxay alxanka biraha waxaa noo soo baxay dadkan najaarinta oo ka shaqeeya alwaaxda waxaa noo soo baxay darawaliin waxaa noo soo baxday dadka ka shaqeeya farsamada matoorada iyo kuwa ka shaqeeya boodhiga ama jirka gawaaridu markay waxgaaraan baatalaamiyeri waxaa noo soo baxay shaqooyin badan oo baahi weyn ay ka jidho iyaduna waa qaboojiye oo ah ama hal la qabo talaajadaha dadka ka shaqeeya ama gawaarida dadka ka shaqeeya waxaa noo soo baxay harqaanka baahi harqaan inay jirto oo shaqaale looga baahan yahay waxaa noo soo baxay farshaxanka oo ah qurxinta ha noqoto mid qofeed iyo mid guriyeed dibad iyo gudaba intaasoo shaqo waa bannaan tahay waxayna doonayaan shaqaale ka shaqeeya lacagta laga qaadanhayaa shaqooyinkaas waxay u dhaxaysaa 70 ilaa $450 taas ayaan waxaan leenahay ardoy dhalinyaroy ama ka bax secondary ama jaamacad ka bax ama jaamacad master ka hayse haddii aadan xafiis helin waa inaad middan aan ka shaqaynaa dhexda u xirannaa aan ogaanaana inay tahay sida taariikhda ay inoo sheegayso ambiyadii iyo laguna soo qaatay khudbaddii masaajidka dulqarnayn bishan 12 oo ahayd muuminka qawiga wuxuu ka fiican yahay muuminka daciifka taas waxa weeye khudbada shiikhi jeediyay allaha khayr ka siiye wuxuu soo qaatay ambiyadii inay ahaayeen kuwa ku shaqaysta gacantooda laga soo bilaabay daawud zakariya muuse nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhammaantoodna korkooda nabad iyo naxariis ahaatee waxay kuwa ka shaqeeya alwaaxda toritaanka ari raacnimada birta iyo tijaarada marka secondary aan ka baxay af ingiriisi waan wax ku bartay Vasco da Gama iyo Leland iyo Marcus iyo raggii qoray waxyaalo ay soo guuriyeen baan waxaan ku jaangoynayaa inaan anigu mustaqbalkay ku jaangoynaya mustaqbalkeena waxa fiican taariikhdii ahayd ambiyada iyo ari raacnimada iyo qofku inuu shaqaysto oo wax xalaal oo dhididkiisa soo saaro ayaa buuxda walaalayaal ehel wixii aan heli karno aan qaadano waaya nabadoon yaasiin cabdisame gadaal ayaad naga soo birtay inkastoo ay ku dhaaftay aragtidii hore oo ku sareeyay qoraaga shakiib warbixintiisa waxaa ka mid tahay dadka ganacsatada degan gobolada puntland gaar ahaan gaalkacyo fursadaha uu tilmaamay hadda shakiib oo warbixinta ku jira waxaa ka mid ah hoteelada oo kale in shaqo laga heli karayo hoteelkiinu shaqo ma bixiyaa horta hawshaan sida suldaanku u sheegay hawl waxay ahayd aada looga daahay fursaddaanina waxaan filayaa inay fursad hadda wanaagsan oo macquula ay tahay tan kale oo ah in annaga hadda hoteelada iyo shaqada sida loo heli karo anaga hadda hoteelkan waxaa ka shaqeeya ilaa 21 qof bishii waxaan bixiyaa taqriiban lacag adigu $4,700 ku dhow oo mushaara
qaab kasta ha u baxa qof yoomiye u qaata iyo qof bilo u qaata markaan averageka dadka isku celceliyo 6-7 qof yaa deegaanka reer puntland duruufaha kalifay marka dadkaa kale in dadka inta badan inay noqoto dad imaata ah waxa weeye dadkii shaqada hoteelka dadkeenu uma qabaan inay shaqo tahay laakiin subaxii waxaa kuu imaanaya 20 qof oo shaxaad taga haddaad tidhaahdo shaxaad kuuma heli karee shaqan ku hayaa ma shaqaysanaysaa wuxuu ku oranayaa ma weel baan dhaqayaa ma dhul baan tirtirayaa ma waardiyaan qaban karaa war wax kale shaqo kale ma haysaa maxaa qaban kartaa kan ugu yar oo hadeer baadiyaha ka soo galay wuxuu ku oranayaa hoteelka ma ii dhiibaysaa war hadda hoteelka in lagu dhiibo hawl badan baa ka horreysa wax ma akhrin ka dhaa wax ma qori ka dhaa sida qof loo soo dhaweeyo ma taqaanaa maya anigu war aniga dhulna tirtiri mayo raashinna geyn mayo kuugna noqon mayo kuleeyahy marka runtii waa dhib jirta waxaan rabaa marka maadaama aan dib ka imid waqtiguna igu yaryahay shakiib wuxuu soo qorsheeyey shax waqti badan buu geliyey qoraallana waa soo diyaariyey dhibaatada jirta waagii hore soomaalidu waxay ka cabataa shaqla-aanta ma ahayn waayo waxaa la yidhi wiil 12 jira hadduu leli ahaan waayo luun marti leyl dambe timid hadduu luun ka rogi waayo maalin dirireed hadduu sidaas waxa uu noqon waayo raganimo lidii ma ahay liicii ogaada wiilku markuu 12 jiro saami ku aad buu ahaa gabadhuna markay 6-7 jirto reerkaa waa baahi tiri jirta hadday weel tahay hadday aqool tahay hadday xoolo tacab tahay dadku marka soomaalidu waxa ay ka cabataa ma ahayn shaqo la'aan intii magaaladu timid soomaalidu xirfadeediina waa ka timid xirfaday lahayna way gashay dhibaatada jirta hadda waxaa weeye dadka hadda dalka jooga waxay u badan yihiin dad miyi magaalo ah dad miyi noloshuna ay ku tiirsan tahay magaaladan hadda hoteelkan aynu fadhino subaxii haddaan suuqa koombe caanaa iyo cad hiliba ka soo waaya albaabadaan u laabaya haddana inaan xoolo tabca ma rabo wiilkaygu inuu tabca ma rabo waxaan rabaa subax walba inaan helo caano fareesha iyo hilib fareesha waan meherada ku socodsiiyo dhibaatada marka jirtaa waxaa weeye sida loo sheegay shaqo la'aanta jirtaa waxaa weeye dadkii oo aan u habaysnay noloshii bay'adii dhulka ka jirtay markii dalkeennu hadda uu dowladda lahaa wasaaradaha wasaaradda waxbarashada qaybaha tacliinta jaamacadaha waxaa ka mid ahaa wasaaradda kuliyadda beeraha kuliyadda xanaanada xoolaha kuliyadda kalluumaysiga iyo kuliyadda geologiya macdanta kuliyadaha ugu dadyar bay ahaayeen haddana resourceka waddankeenu uu leeyahay oo qofku inuu bartaa ay waajib tahay waa xoolaha waa beeraha waa kalluumaysiga iyo macaadinta hadda waxaa laga hadlayay shakiib daraasadda wuxuu ku soo sameeyey baatalaamiyeeri iyo magaaladan haddeer 93 aniga isaga iyo suldaankii waxaanu joognay iyadoo hal gaari oo xaajiyada oo uu joogo iyo gaari nin la oran jiray madaxmadow allah u naxariistay la dilay uu lahaayo ina madaxmadow wuxuu ahaa ina hebel faar xasan cadde wax gawaariye waxoo dhan waa wax la soo waariday anigu marka daraasad kale waxaan hayaa 3 bilood qofkii $5,000 meel gashada uu helayay $11,000 iyo $175 3 bilood waa daraasad kale midaan ka faaftay suldaan wuxuu tilmaamay shakiib inay jiraan fursado tiro badan oo shaqo laga heli karayo dhallinyaradina iyagoo u jeeda fursadihii oo hadday doonaan ka faa'iideysan lahaa mushaariin keeni kara aysan u jeedin ee ay tahriib iyo meelo kale u hanqaltaagayaan masalada marka fursadaha kane waa kuwo dadku hadday ka faa'iideystaan dabooli karaya baahidooda shaqo haa waa isleeyahay 100% laakiin 3 waxyaalood baa waxaan isleeyahay waxay ka yihiin barrier midda ugu horreysa waxa weeyaan waa sidaynu u samaysannahay oo ah nooca qabaa'ilkeen u naallo waa mid weeye midda labaadna waxa weeyaan waa mararka qaarkood duruufta dalka ka jirta iyo waxyaalaha qaarkood iyadana waytaa midda kalena waxa weeyaan waa dhaqankii mid waxa weeyaan waa qabaa'ilkoo in hebel ma uu rabo inuu
tumaal inta noqdo ama kabtii tolo ama birtii garaaco oo wax kala soo baxo ma uu rabo because maxaa dhaca wuxuu waa caari iyo ceeb ku imaanaysa reerkeenii ma uu rabo inuu timaha jaro oo timo jaro noqdo oo timaha waxaa lagu jaraa $2 ama $1.5 baa lagu jaraa hadduu 10 qof u jaro maanta $10 buu soo xariirayaa which means bishii $400 ilaa $500 buu ku xisaabtamaya Soomaaliya garan marka ma uu shaqadaas waxa u diidaya waa in hebel oo timihii jaraya ama kabti tolaya ama birti garaacaya tawa waxa qabaa'ilka u nool kuwa inta sameeyay laftooda lagu caayay kuwa inta sameeyay lagu caayay exactly arinta kale waxa weeyaan waa dhaqankeena ka soo qaad ardayga digriga koowaad diyaariya UK markuu joogo ingiriiska markuu joogo cadaanka ah ee aan ahayn dadka nationska kale yani ummadaha kale aan ahayn ah dadka dhaladka ah oo cadaanka oo meesha u dhashay lafteeda waxay ku qaataa inuu shaqo helo 6 bilood ilmaha hindida waxay ku qaataa wax ka yar 1 bil asbaabtu waxay tahay ilmahani marka hore shaqadu qabanayo baabiisi reerkooda ku soo jira maxaa dhacay waxa laga yaabaa inuu aabiis dentist aha ama uu haystay clinic oo kiyaalayaasha lagu sameeyo ama uu hadii rabo ka harqaan la aha sidaa darteed ilmihii waxay baranayaan shaqada ku saabsan ilmahaasi markii hore shaqada way yaqaaneen anigu waxaan ka baxay Jamal Abdi Naasir waxaan la dhiganay Arab iyo Yemeniin iyo Soomaalida aha oo xamar iyo Shingaani deganaan jiray wax bakar yar liidaas kala sayn annaga markii yani dhamaado iskoolku la xirayo waxaan doonaysaa in la jiro isagana harqaan ka shaqeyn jiray koofiyadu tali jiray mariyuu hagaajin jiray waxyaabo product soo saar jiray wuxuu imaan jiray hadhow fasax markaan ka soo laabano isagu waxaanu lacag haysta annaguna markaan fasax ka soo laabano aaba waxaan ka shaqayn jirnay iyo waalidka waxaan ka shaqaynaa lacagta iskoolka iyo baskii marka waxa weeyaan waa qadiyada waa culture-ka iyo hab dhaqanka weeye oo u baahanay inaan bedelo oo u baahanay waalidkii inuu bedelo waalid kaliya ma madaxdeen inay bedesho waxay tahay inaan qorsheyno haddaan reer Puntland nahay isbuucii shaqada wax la yiraahdo kale oo wasiir kasta in wasiirku maqaayad ka shaqeeyo oo wasiirka lagu khasbo inuu kabalyeer noqdo bish maartay isbuucaas oo wasiir kale lagu khasbo inuu hadii rabo tima wax ka jaro oo وهذا ربنا إن أزمتنا ذا كبحروي أزمتنا ذا كبحروي لأنه وحنو بان حلوشا للربع إن لكينو وحي كإيمان بين يحنون وحي كإيمان وحي نوجا بانت أتكيسي وحي نوجا بانت كل عنا يلنا مر كانوا حلا شقوين كانوا يعني شكيب وسؤولي يشقوين كانوا فرا بدن وجودها كتيرة وحين بهنا إنسان هوس وجود عنه المهن إن كوغن عنه أنا جا ويلكي وحن كيري وهذا سكن دكتا هذا فنفور قليا سنت كان فنفورات بلعب هذا وان أنت مركب فنفوري كبعم كير جراش بمجين وحن ربع كلية مكان لماذا هل شيء وكم ذينا برته نم الله سؤال سي أنا جا شاتي اليوم مرة ما كنت ترى marka ilmahani shaatiyaashoodii mar in ay ku tiraan marka dib aan fakari waxay ahayd inaan aniga garaashka galo shaqeeyo shaqada galo si igu yimaado abaqadii keen markano maanta labaad birta iga qabadaan oo la shaqeyn lahaa marka waxa weeyaan waxaan u baahanaa amalkan waa amal saalix ah weeye amalkan saalix wuxuu u baahan yahay inaan ka ajarsano qul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa amal weeye wa shaqo wa xoog المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من مؤمن ضعيف عمل وحوقف عن قفك وحوق عندي كسر صاره هدير عمر بن الخطاب وحيري هدا ما حضرت انتاد ميل فريستان قفك نيانو ميل فريسانين هو شغل انتو كتغو وسن إلهي كبرين إنه الرزق زي إله الرزق زي يون أورنين ما حد فإن السماء لم تمطر الذهب ولا الفضة السماء ذهب ما كينيسو فضة ما كينيسو waxaan marka waxaan u baahanay waa amal waa shay sharaf oo shay khayra inaan isku qancino anaga nafteena ku qancino saas ila tahay waya in Cabdisaaq waxa dadka qaarkood ay tilmaamaan in waalidiintu ay laftoodu kaalin ku leeyihiin arrintan dhalinyarada oo midna waxa arkaysaa waalid 4 wiil iyo dhowr gabdhood ay u joogaan iskuulka markay dhiganayaan inay ku sibaariyaan adu marka dhameystay dugsiga sare anaga meelaha shaqo kaaga raadinaya kuwan dhulna ku gado oo marka ardaygii uu niyadda marka hore ku soo xiro in aabihii iyo waalidka ay dabari doonaan kadibna wixii markay fashilmaan taariib iyo dhimasho wadana u bareero marka waalidiinta ham lagu eedan karaa dadku waa labo dad waalid la weeyay dadka waalid kale waa lagu eedan karaa oo waalidkood gacanta ku hayaan soo barbaariyaan Etoobiyaanku waxa la yiri waxay ugu nacab yihiin isku dulnoolaansha la yiraahdaa qofka in loo diyaariyo qof kale inuu ku dulnoolaado oo waalidka hadduu dhinto xataa walaalkii ula noolaado qofkii dhar buu helayaa mid baa shaqeeya waxa laga yaabaa inuu asagu hotel ka shaqeeyo walaalkiis gurigu joogaa daadii ku xigtay weeye
uu ka labis qurux badan yahay mobile weyn buu wataa computer buu leeyahay internet baa guriga ugu xiran asaguna ma shaqeeyo walaalkiisa shaqeeya marka aniga waxay tahay waa in dadka waalidka ah ilmahooda ay u diyaariyaan inaysan ilmuhu cid ku dul noolaaneen oo asagoo naftiisa la noolaado marka waxa weeye waalidku mas'uuliyaddaas waxbay ku leeyihiin laakiin dadka ayagu aan waalidka lahayn dad badan baa jira oo aan maaragtay ama waalidiintood dhinteen ama ayagu miyi ka yimaado noloshooda dabara dadkaas dee cidna laguma eedayn kara laakiin cultureka ama dhaqanka bini aadamku haysto bay iyaguna qayb ka soo gelayaan bini aadamku way is saameeyaan waxaa la yidhaahdo waxaa jira social proof waxa weeye dadku inay ku daydaan dadka kale oo tusaale ahaan maaldeed waxaan arkayay qola research samaysay meel qol ah bay hal gabar ku diyaariyeen oo dadkaas filimka wax ka matalaya waxay yidhaha halkaa fadhiiso muusig baan yeeraynaa dhiiq markaan ka siino adigu istaag markii uusan dhiiq lahayna iska fadhiiso marba qof baa yimaada gabadhaanu arkaa oo istaagaysa muusiga u istaagaysa asaguna wuu istaagaa marka dambe markay dadku 10 meelahaas kala noqdaan baa waxaa laga saaraa gabadhii awal wax loo sheegay marka dadkana qofba mar baa la saaraa marka dambe waxaa soo haraya 3 qof 3 kala imaanaysa waxay arkeen 3 aan oo istaagaysa ayaguna markii muusig yeeray kadib istaagaya marka waa la weydiiyay waxa lagu yiri waay aad u istaagteen haddii maaragtay maxay tahay sababta aad u istaagteen markii aad muusigan maqasheen muxuu micno oo sameynaya marka waxay yiraahdeen dadka kale oo sameynaya baan aragnay oo qolka ku jiray annaguna sidii baan sameynay marka qofkii markuu miyiga ka yimaado ama uu iskuul ka soo baxo wixii walaalkii sameyn jiray aabihii sameyn jiray adeerkii sameyn jiray buu sameynaya marka waxa weeye ilaa dhaqanka annagu aan bedelno oo bulshadu bedasho dhaqankaas ma tegayo mid labaad baa jirta iyadana muhiima waxa weeye dadku macluumaadkiiba ma helayaan marka haddii taas waa sida shakhsiga marka loo fikirayo sida maaragtay wadarta marka loo fikirayo waxa weeye dadku xagee bay macluumaad ka helayaan qofku markuu soo tooso seebuu ku ogaanaya shaqo inay jirto fursad shaqadeed ma jirto iskuul yani la yiraahdo iskuulkaasaa laga doontaa dadka professionalka ma jiro website gaar ah oo lagu soo daabaco shaqooyinka gaalkacya ka bannaan oo kale mabale media bahalkii journal waddanku mabale inta badan qofkii dowladdu waxaa la rabaa meel bay ku jirtaa horta bal inay sheegto dadkii intaan dhaqanka laga bedelin aan shaqada haysanin dad waxaa jira hadda sida ninkaan noo sheegayay oo kale jaamacad ka soo baxay oo professionkoodii yaqaana laakiin shaqo aan helin waxa laga yaabaa ninka inay ugu kacdo lacag inay ugu kacdo inuu macluumaadkii helo saaxiibo inuu meel ku qorto yiraahdo WhatsApp group inta samaysan nimayo hadda soo qalin jabiyay shaqo la'aan baan ahay bal haddii aad shaqo ogaataan ii soo sheega laakiin haddii ay jiri lahayd meel subaxii qofku markuu soo tooso uu ogaado shaqooyinka fursadaha bannaan dadka shaqooyinka boos ka bannaan yihiin haddii sida yaasiin oo kale hotelkiisa markii boos ka bannaanaado uu tago ku dhajiyo yiraahdo halkaas alla ilahay boos baa iga bannaan way fiicnaan lahayd kuwaas waa fursadaha dadka caadiga dadka ganacsatada dawladda aqoon-yahanadu ay buuxin karaan laakiin ay ka gaabiyeen waaya waxaan siinayaa maxamed cabdulqaadir waxaad ka timid ama waxaad tiri waxaan soo bartay jaamacadan ka soo baxay oo shahaadooyin baan ka wataa dad reer puntland oo badan dhalinyaro halkan ka taariiban ood kusoo aragto qaarkood waxaa la sheegay xataa baabuurta inay tirtiraan markii adigu aad yamana aadaysay hamigaaga muxuu ahaa ma inaad halka wax ku bartay halkaa shaqo si doonaysay mise inaad puntland dib usoo laabatay oo waalidka aad u timaadid maxaa ku fikraysa aniga horta markaan hadafka halka kaga baxay wuxuu ahaa aan soo dhamaystirto jaamacaddii inkastoo aan ku jiray jaamacad oo dee iska markeedii horeba iska ahayd bilaash jaamacadahaniti oo dee caalam islaami ay wax siiyaan jaamacaddii markaan ani aadayay waxay ahaa qasdigay inaan tacliin ma ahayn dee arrin kale uma bixin midda labaad cid baabuur dhaqdo reer puntland ma arkin annaga xagga markaan joognay waxaan lahayn urur iyo isku duubnaasho iyo dhalinyaro nin la yiraaho Faisal Garas rubma inaad taqaanaan ninkaas noo ahaa wax shaqo minan jirin shaqo way jirtay meel yar la lahaa ganacsiga iyo wax ganacsato meel yar furanaysi way jirtay laakiin wax baawur dhaqay waxa minan jirin taasna waxa u diiday waxa jira wax curfi la yiraahay iyo caadi iyo dhaqan jiro reer Puntland طبعا waa dad qabaa'ila weeye oo de oo ashraafa marka waxa sharafta ila shariye uma sharaf way doobasanta maxamed toray maxaa ku tarasaa bismillaahir rahmaanir rahiim insha Allah ma santahay horta waxa weeyaan qofka islaam oo bini aadamka ilaahay markuu abuuray oo u dhasho markuu aqli yeesho waxa horta ugu muhiimsan waxa uu arko iyo dariiqa ummaddu la noolyahay sida rag igu horeeyay sheegayaan buu wax ku fahmaya waxna ku qaadanaya aniga marka anu baadiya haddaan ku dhashay aabbahay sictooreeye khayr allah siiyo nin farsamo yaqaan u ahaa geeduhu qori jiray dadku kabi jiray waxa uu dhisi jiray farsamo nooc walba qaban jiray marka ilaahay baa hubigayga calo wuxuu jeclaysiiyey farsamadan aabba ka shaqaynayo markuu shaqo qabanaya waa agfariisan jiray wixii anoo fahansan oo qalbiga niyadda ka jecel baan xamartay xamar markaa tagay iskuulka anoo dhiganay dugsi fasalka 7 anoo ku jira nin adeerkay maxamed Abdalla wuxuu yiri meel geedaha lagu qoro ma ku geeyo aabbaha waa geedaha qori jiray ها بانير ميل ورشد وين أو قلب فرنيتشر سماه سبان لقيي
shaqadii muddo yar baan ku bartay yani waxaan u hayay hami baan u hayay rabitaan baan u hayay baritaankii aan bartay dadkii aan la noolaa oo ehelkayga ah way igu caayi jireen waxay odhan jireen wariyaa shaqadaan aad ka shaqaynaysid addoon baa ka shaqaysa shaqada addoonta weeye maxaa kuu geeyey wax si kasta intay yeelaan baa liiga furjin waayay annaga waxaan aaminsanaa addoonnimadu inay tahay addoonnimada ilaahay ilaahay addoon inaan u ahay ayaguna dadka farsamada ka shaqeeyo reer koonfureedka bay addoon may ku sheegayeen arrinta waan diiday ilaahay wuxuu qadaray farsamadii markaan soo bartay oo heer fiican ka soo gaaray oo waddankii burburay iskuulkeena dugsiga farsamada gacanta bolitechnica ka soo baxay oo shahaadada baan ka soo qaatay markii heerkaas aan marhayo baa waddankii dowladda burburta jaamacaddii afaarahaas ma gelin puntland markaan imid addoonnimadii lagu caayi jiray baa reerka iyagii iyo familkii o dhan ay ku badbaadeen shaqadii waxaan ku soo bartay ya iyadii baan kusoo shaqeeyey dad badan kusoo baray wax kusoo tabcanay alxamdulilah haddana waxaan macallin ka ahay oo ka shaqeeyaa iskuulkii farsamada gacanta gontabag maadooyin baan ka baxshaa oo farniijarka ah marka arrintaas waxaa weeyaan sida hadda ragga iga horreeya ay sheegeen qofna waa qof hadda waxa uu arko yaraantiisii intuu ilaahay jeclayso inuu ku socon qofna waa qof lagu tababaro oo taroos loo siiyo oo maaragtay marka ilaahay hayna fahansiiyo baan leeyahay dhallinyaradan ilaahay noo fahansiiyo in waddankeena ka shaqaysan aan wax barno insha allah waya shakib warbixintaadan waxaad ku tilmaantay fursado tiro badan in la heli karayo fursadaha laftigooda waxaa la sheegayaa inay dhibaato ka jirto oo dadkii iyagoo hadday doonaan ka shaqaysan lahaa in ay jiraan xujooyin kale oo horyaalla oo dad aan deegaankii ka soo jeedin oo tiro badan oo loo raacayo mushaarka ay qaadanayaan oo ka jabanka dadkaana qaadanayaan in iyagana lagu xulanayo arrintaas ayana caqabad kala tahay ku muuqato arrintaas su-aashaas waxaan odhan lahaa yaasiin ama iiga fiican yahay oo asagu maadaama uu bucda uu fadhiyo yaasiin inuu ka jawaabo midaasaan odhan lahaa horta muhiimaddu waxaa weeye qofka reer koonfureedka waa qof soo safray waxaad arkaysaa ilmo yaroo 18 17 jira oo aan waalidkii la noolayn oo shaqo tag ah laakiin markuu gaalkacyo yimaado ama puntland yimaado wuxuu dalbayaa inuu noolaado halkaanu ka shaqaynayaa shaqo ma yaqaan markuu kuu yimaado laakiin niyad buu hayaa wuxuu ku oranayaa shaqaysi maxaa qaban kartaa waxaad u dirtid dhulka tirtir miiskaan wax mari qofkaan shaaha u gee weelkaan dhaq nolosha isagu meesha la yidhaha wax ka bilow iyo wuxuu jecel yahay inuu inta wax ka bilaabo meel gaaro waa ka dhagan u leeyihiin midda labaad wuu waxbuu maqlayaa amar qaadashuu leeyahay tan saddexaad haddaan isaga duruufi eriyin shaqadiisa si joogtaabuu u haysanayaa qof meel kale usii socda maaha tusaale yar baan ku siinaya gurigaan aynu hadda fadhino ninkii kuuliga ka bilaabay kuuliga waxaa la yidhaha kuwaan dhagaxa iyo dhoobada iyo geeya isla gurigu intuu socday wuxuu noqday saka fuundi gurigaani markii uu dhammaaday fuundibu ayuu ku mushaar qaadanayay hadda waa injineerka magaaladan gaalkacyo dhisa wuxuu qaataa gurigaanu kuu naqshadaynayaa wuxuu la shaqeeyaa injineer cabdirasaaq cali salaad waa cabdiraxmaan cali salaad waa nin caanoo la yaqaan magaalada gaalkacyo ninka dhisa way iftin iyo hoteelada dheerdheer oo magaalada ku yaal injineerku naqshadu u dhiibaa isagaa dhisa hoolkan hadda aad aragtay oo gurigan ku yaalo 30 mitir 15 bilaatiirka isagaa dhisay ninkii maalintaa joogay oo reer gaalkacyoodka ah wali isagoon waxba aqoon buu joogay marka duruuftu sidaasay ku imaanaysaa waa run tusaale yar baan marka raacsanaya hadda ka hor baan waxaan tegay Dubai 2002 marka waxaan ka ganacsanayay hilibkan ariga shaqiiqa marka nin hoteelo waaweyn la ii geeyo nin aan saaxiibanahay ii geeyo ninkii baanu sheekaysanay maalintii dambe yaa sheeko la isku keen marka da'dayda iyo hantida iyo waxaas uu weydiiyay wuxuu yiri jannaad haysataa annaga wuxuu yiri anigu 60 jir baan ahay maalintaan adiga kulli akaa xataa qutulyoonka ciriiri igu ahaa yiri inaan helo adiguna maanta wuxuu yiri diyaarad dhanba kaga soo rartaa sheekadii baa la waday waxaa soo baxday inuu nin saaxiibkiisi nin Masri uga shaqayn jiray guriga oo dabaaq u ahaa kuub suuxi dambe wuxuu yiri shaqo la soo dhijiyay company weyn oo petroleumka iyo imaaraadka waxaa la dalbaday nin PhD holder oo administrationka
ninkii ninkan kuuga u ahaa oo guriga caa'iladiisa uga shaqayn jiray ciyaalka dharkii cuntada u karin jiray yaa shaqadii dalbaday subaxii dambaa joornaal u soo dhac quraacdii oo u keenay joornaalka marka xaq waxaa u leh ninka guriga leh inuu marka hore isagoo akhristo joornaalkii uu akhriyey mise kuugiisiibaa waxaa shaqadii ay u soo baxday shaqo mushaarkuna uu yahay $30,000 serviska iyo adeegga u qaadanayaana ilaa 100 iyo siyaada yihiin wuu rumaysan waayey inuu ninka caruurtiisa quraacda u sameynaya yahay ninka shaqadan helay uu u yahay wuxuu yidhi sawirkaan ma taqaan suu ha ninkaan waa kuwa waa aniga ninka koongu meesha ku gal guriga lahaa marka qofka aqoontaa leh inuu ilmihiisa cuntada u kariyo oo mustawa $200-300 uu ku shaqeeyo yaa qariib la noqotay ninkii wuu u caqli celiyey wuxuu yidhi xirfadaanina midaan anigu leeyahay waan adiga kuugu shaqaynayay baa tanina midaan hadda lahaa oo fursadeeda aan hadda helay weeyey inaan ku baryo ama gaajo meel ugu baqtiyo waxaa ka fiicnayd buu yidhi inaan ilmahaaga cuntada u kariyo oo fursadeyda ku sugo dadkeenu marka jaaniska ma ogola waaya shaki buu ka jawaabo maranaya Yaasiin waxaan filayaa Yaasiin sidii uga jawaabay ana waxaan ku darayaa waajida carqalada jira oo dadka shaqada ka xaniba sida daraasadda ay muujinayso waxa jira dadka u shaqaynaya hay'adaha iyo meelaha laga qaato mushaarka xoogaaga roon waxay u baahan yihiin aqoon iyo waayo aragnimo shaqo dhalinyaradii markaan weydiinay waxay yiraahdeen taan waa nagu adagto ma helayno ma buuxin karno shuruudii kow midda labaad shaqooyinkii la heli jirayna waa ka faanaynaayo aniga hankaygu ma aha inaan makhaayad ka shaqeeyo oo $100 qaato dadka shaqada bixiya ama shaqooyinka meelaha laga helo oo ay Yaasiin ugu horeeyay hotelkiisa dadkii aan ka bilaabay bishii 7 hawshan waxay ii sheegeen in loo baahan yahay dad dulqaad leh dad hawlkara iyo dadka kale ay la shaqaynayaan iyo waajibaadka ku aada ka adkaan kara hada sida la sheegay haddii aan aqoonna lahayn wax maqalna jirin iyo dulqaad aadan maantana xeerin karin oo qadin karin waxaad baratay inaad sugotid xilligay soo baxdo aanad ku shaqaysatid wixii jidha oo fursada taasna waxa waaye shaqada dadkii bixinaya carqalada ma waxaan tagay shirkado dhalinyarada qaarkood waxay ii sheegeen shaqooyinka shirkadaha hayaa inay u dhigaan oo meel ugu xiraan hab qoysnimo ama walaalkood ha noqoto ama in adeerkood ha noqoto ama xigta ha noqoto laakiin shirkadihii markaa tugtid ay yiraahdeen qof xirfad leh nidaamkana la socon kara hawlkarana nooke waa qaadanaynaa waa la garta marka arrintaas ayada ah waxa weeye oo shirkadaha qaarkood ay tuseen internetka page ay ku leeyihiin oo ay ku qoran yihiin shaqaale ay doonayaan shaqaalahaas la doonayo heer Soomaaliyeed baa loo gudbiyey magaaladan Gaalkacyo yaala warqadii nin allaale ninkii raba waa loo soo bixinayaa carqaladaas iyo shirkad baa meel loogu xiray 50% weeye dadkuna waxa lagu raacaa in waxa loo dhiibay ay xafidayaan nina walaalkiis oo waxa waaye wixii loo dhiibaba dam ka siinayo waxba uma dhiimanayo laakiin nin wixiisa uu ilaaliya bay u dhiibanayaan marka ma dadkii dhalinyarada iyo shaqada doonaya ayagu carqalad isku ah mase waxay eed saarayaan nin lacagtiisa ilaalsanaya oo leh waxa waaye war waxaan u rabaa qof nidaamka raaca amarka raaca u ekaada shaqaale marka carqaladaha iyo fikirka la qabo iyo hanka hal is waafajiyo
waya suldaan inagu markuu soo gabagabayno waqtigu ku soo yaryahay xagga maamulada markii laga hadlayo waxaa la sheegaa had iyo jeer markay hadlayaan inay dhalinyarada shaqo abuur u samaynayaan haddana waxaa la tilmaamayaa in shaqo kasta oo soo baxda meeshii la baahin lahaa oo qofkii ku habboonaa la geyn lahaa in garab taabasho xataa maamulada ay wax ku shaqaalaystaan oo waxaad arkaysaa dad aan markaan shaqadan kaba bixi karin ama da ahaan ha uga baxaan iyagu bixin ama si kaleba uga bixi waay booskii lagu buuxinayo oo iska dhex fadhiyo qofkii aqoonta lahaa oo shahaadadaas haystay oo inta wax soo baranayo oo dalkii joogeen isagana uu halkar baaga muddo la fadhiyo taas maxaa ka oran lahay taas horta macluumaad badan kama hayo runtii laakiin aniga waxaan is leeyahay ha ku jirto buunbuun ha ku jirto laakiin way dhacdaa mararka qaarkood way dhacdaa qofku inuu qof yani u golbaneeyo oo yidhaahdo qofkana ku xigta ama kuwa ama saas kuwa inuu u golbaneeyo qof sii u jirta laakiin waxyaalahan la qarin karin waxaa ka mid ah markii ama ha noqoto institution dawlad ha noqdo ama institutionka dadka sida gaarka loo leeyahay ganacsiga ama wax soo saarka ama waxa la midka ama serviceka ha noqoto qofku wuxuu u baahan yahay qof professional oo xirfadii leh oo shaqadiisii wadi kara annaga muhiimaddeena waxa weeyaan inaan dadkeena inaan u ta'hiilino oo geysiino inaan iyagii laga maarmi karin qabyaalad kastoo timaada markaad darawal u baahan tahay reerkiina hadduu wiil reemiye yimaado oosan gaarigii wadi karin ama gaarigii mashiinkiisii arto in lagaaga shaqeeyo nin reerkiinu reemiye ma keeni kartid shaqadii oo iinka shaqey ma oran kartid because of shaqadii ma uu qaban karo sidaa daraaddeed waxaa la raadsanaysaa qofkii yaqaanin marka aniga waxay ila tahay waxa maamulka iyo cid kastaba ku khasbaya dadka qiimaha leh inay qaataan dadkii in la soo gaarsiiyo level aan iyaga laga maarmi karo la tababaro la ta'hiiliyo aqoontii ay yeeshaan wataan lahaa qofka arday markuu dugsiga dhexe markuu soo bilaabo waa in farsamadii lagu bilaabaa marka haddaan qof noocaas oo kale oo 12 sano 10 sano 8 sano shay ama labo ku foogana haddaad keento saaxadii shaqada hadduu yimaado qof adduunkana shaqada musaaxam waa ciriiri markii ciriiri tahay qofka uniqueness iyo inuu dhif iyo naadir isagoo dadka dhex yahay buu shaqada ku helayaa marka anu taas waa qodob tan labaad waxa weeyaan waa midii hore aan ku bilownay ah waddanku wuxuu u baahay national policy oo ah siyaasad shaqo oo caam ah oo tan deegaanka puntland oo kale iyo tan soomaaliya ah taasaa marka waxay hufaysaa qofku rabo inuusan soo bannayn karin saas ila tahay waya maxamed baraak waxaanu gudbaynaa dhinaca xalka maxaad ku talin lahayd sidee dadkan dhalinyarada shaqo loogu abuuri karaa oo shaqo la'aanta looga bixi karaa taladaada ugu dambaysa waxaan is leeyahay horta marka ugu horeysa labo sida ay isu waafaqayaan in laga fikro ama laga hadla weeye mid waxa weeye dadkii suuqa joogay oo shaqadoonka ahaa dadkii shaqada hayay waxay ku eedaynayaan inay ehelkooda shaqada u hayaan oo ay siiyaan dadkii shaqada gacanta ku hayayna dadka suuqa jooga inaysan shaqo rabin oo shaqadii qaban karin bay ku eedaynayaan aniga waxaan is leeyahay qofka koowaad oo shaqada haya gacanta ku haya xaq buu u leeyahay inuu raadsado qofka u mushaariyar inuu raadsado ma aha ama ehelkiisa ama qofka gobolkiisa ka soo jeeda maxaa yeelay hadda tusaalahaan hoteelka ninka haysto kale dee ehelkiisu intay lacag isku dardareen uma dhisin asaga dhistay ama gobolkiisa loogama dhisin sidaa darteed priority-ga wuxuu siinaya ama muhiimadda ciddii asaga u mushaariyar shaqadiina u qaban karta marka aniga waxaan is leeyahay qof kasta oo hadda puntland jooga oo ku eedaynaya inuusan shaqo haysanin cid kale wuu khaldan yahay tusaalaan soo qaadanaya anigu waddankan jooga asagaan wax ku barta markii aan jaamacadda dhameeyey jaamacadda intaana ka imaanin oo waddanka imaanin 3 shaqaan haysta maalintaas aan jaamacadda dhameeyey meel tuulo ah baan ka shaqo bilaabay bursaalax baa la yidhahdaa mushaarkii maalintaa aan qaatay oo aan shaqada ku bilaabay iyo mushaarka hadda aan qaato kaasaa badnaa marka waxaan garanayaa fursaddu waxay jirtaa magaalada dhexdeeda hadday rabto ma taallo ama daraawiishta keliya ma taallo laakiin waxay taallaa meelaha agagaarka ah marka fursadda qofku waxa weeye asagu inuu ka raadsado meesha ay jirto laakiin inuu eed la soo fariisto eed iyo yacni rafaad badan wax kaa dhagaysta iyo si aad u sheegto iyo maamul aad ku eedayso iyo dadka shaqada maarood siinaya waad helaysaa laakiin ma helaysa cid ku caawisa keliya qofku asaga naftiisa caawin karta inuu shaqadii raadsado markuu qof yahay laakiin markii dadka mujtamac aynu nahay oo dadka goboladan ku nool aynu nahay xalku wuxuu yahay kow inaynu maaragtay yarayno isku dulnoolaansha oo qofkii aynu u diyaarino inuu keligii noolaan karo labo xirfad in la helo oo dadkii la gaadhgareeyo jaamacadaha dadka furanayaae inay kulligood hal kulliyad iska furtaan ma aha qofku waa inuu hadda shakiib oo kale research uu sameeyey dadku inay u yimaadaan yidhahdaan weeye researchiga aad samaysay suuqu muxuu u baahan yahay suuqu wuxuu u baahan yahay tuubiiste iyo motoriste iyo electrician hadduu yidhaahdo markaa qofku waxaa lacag yar ah maaragtay buu ku furanayaa kulliyad soo saarta tuubiiste soo ma arkaysid laakiin inuu yidhaahdo jaamacad baan furanayaa kow college mahana waa jaamacad labo
business administration bay sheekada ka bilaabaysaa dhakhtarna way ku xijinaysaa iyo engineer dee wadankii dhakhtarkii muxuu ku practice garaynaya dhakhtarnimadii engineerkii wadanku ma dhismayo wadan lacag taala ma aha waxa ma soo saaro xaggee dadka oo engineer u wada noqonayaan laakiin qof walba aniga gurigay hadda waxa looga baahnaa tubisti qof aan tubisto aan garanayana waa yaryahay qof maaragtay meel kale ka yimid mooyaane marka waxa weeye xirfadda iyo shaqadu inay israadsadaan baan xal u arkaa haddii shaksi la yahayna qofku inuu fursadda raadsado meel kasta uu ka raadsan karo haddii dad badan la yahayna in dadku ogaadaan wax taya leh baa loo baahan yahay qofka shaqada hayaa xaq buu leeyahay inuu raadsado cidda asaga u muhiimsan ama haddii qofkii xirfaddii uu leeyahay in adeerkaana uu yahay maxaa diidaya asaga shaqada inaad siisid wax diidaya ma jiraan shaqada waad siin kartaa hadduu xirfaddii leeyahay oo shaqadii qaban karo eed maaha sidaas laakiin eed waxaa ah nidaamka dawliga oo kale ama shirkadaha in qof la yidhahdo waa in adeerkaya maamulaha ka noqdo sidoo kale waxaa eed ah qofkii waardiyu ahaan jira jaamacadna wuu dhigtaa karti buu la yimid hadda sidii ninka la yidhahdo yaasiin uu ka sheekeynayo kale waa inuu structureka waa inuu u saamaxayo inuu meesha u sarreeyo tago laakiin la yidhahdo shalay waardiye ahayd meesha maamulaha reer keliya iskale qofka sidaasa waxay ku dhiirigelinaysaa inuu waddada inta ka leexdo uu waddo kala maro waa ka baxay aad baa mahadsantahay maxamed abdiqaadir taladaada walaalle horta marka koowaad waxaan ku talin lahaa dabcan dadka dhalinyarada waxaaniti in la tuso oo dad waaweyn oo qudwo ay ku daydaan dad waaweyn oo dee waxgarada oo waxaan hooshaan yar oo basiidka ah sameynaya inay arkaan oo kadib ayaga ay ku daydaana fiicanay moogtahay laakiin dee taa haddii la waayana waxay noqonaysaa mushkilo dabcan hadda intii la sheegaya de waxaa weeye xirfado wey ama khibrada sideedaba hadda carabtoo kale ninka ah kabatolaha wiilkiisa dabcan akiid wuxuu noqonayaa kabatole leanno aabihii khibradiisii la soo baxaya hadda khabaaska ninka khubiska sameeyo kale iyo wiilkiisana khabaas uu noqonaya asna waa de khibradu way iska dhaxlayaan marka waxa loo baahan yahay dad waaweyn oo qudwo ah oo de xitaa dadka muuqda sida wasiirada oo dawladda waxa ku jiro inay waxaan iyagii ficilkii sameeyaan kadibna dhalinyaradii ay ku dayato oo kadib yani ay sidaas qudwo ugu noqdaan saas aan ku talin lahaa de kulli aad baa mahadsantahay maxamed tore بسم الله الرحمن الرحيم وسيدة حلقة إلهي هنا وافجه وخيرا dadka maanta meesha jooga horta haddaan u baahannahay xirfad aqooneed oo aan baahida waddanka ka jirta aan ku xallisanno haddaan u baahannahay ilaahay fadligiis xirfadihii oo qalabaysan oo maamulkoodii iyo nidaamkoodii iyo macallimiintooda wax walba kunbada ay u yihiin magaalada gaalkacyo maanta wayna ku wada dhisan yihiin puntland waa ka wada jiraan hadda iskuulka hadda anigu aan ka tirsanahay gontenberg dadku u yaqaanaan xirfadaha gaalkacyo iyo puntland looga baahan yahay oo dhan waa laga helaa rag iyo dumarba marka qaabkii dadka loo fahansiin lahaa loogu dhiirigelin lahaa oo loogu agaasimi lahaa in ay xirfadaha bartaan ilaahay ayna fahansiiyo allah inoo fududeeyo hadday noqoto iskuullada dugsi sare waa in sida ragga iga horreeya sheegeen xiisadaha loogu daro wax loogu sheegaa in dadka qofka hadduu xirfaddaa barto uusan waxba waayeynin garoway ka furan tahay qardhay ka furan tahay boosaasay ka furan tahay kulli marka un waxa ayna ka maqan keliya inaan xirfaddii aaminno oo rabitaankeeda aan la nimaanno oo aan mataqaana dhex galno si aan bri aan mar uga helno hadda iskuulkaas dadka yimaada say u badan yihiin 80% waxay rabaan inay bartaan office management computer bas xirfadaha kale hadda baabuurta korontada qaboojiyaasha carpenterka harqaanka waxaasoo dhan markii booskan uu ka buuxsamo mid walba ay soo buuxsamaan buu wuxuu dhahayaa alele meeshaan tan iska baro soo iska nafil caadi ya saasuu ku qaadanayaa marka waxa weeyaan hadday noqoto xag maamul hadday noqoto odayaal dhinac walba in dadkii lagu tarbiyeeyo waxa kaliya oo in anfacayo horumar aan ku gaarino inay tahay xirfadan oo aan barano aan ku shaqaysano aad baa mahadsantahay yaasiin cabdisamed talada ugu dambaysa si kooban daqiiqad aniga taladaydu waxaa weeye dadka in la baro oo priority-ga la siiyo waxa bay-adeenna ka jira ama nolosheenna asalka ahi ay ku salaysan tahay tusaale yar baan marka bixinayaa maadaama aad tiri soo koob 100 neef oo ariya waa $50 neefkii $5,000 weeye $5,000 markuu yahay oo arigaasi uu dhalo 100 neefi 20 ilmood waxay u lumayaan dhicis iyo dhimashay noqon karaan 30 soo hara markii 100 neef 50 neef oo kamid ah markii la liso oo 24 saac laga keena 1 litir iyo bar oo litir iyo barka la iibiyo $1 iyo bar hadda waxa la gadaa $2 iyo 2 senti ya koombada caanaha ariga la gadaa waxa ka soo baxaya maalintii 120 iyo 112 koombo markii 30 lagu dhufto waa $3,375 bishii markii lagu dhufto 3 bilood waxay noqonaysaa $10,125
qofkii 3 bilood kadib markii ridaasi ka gudho wuxuu haystaa 170 neef oo ariga oo 70na ilmihii tahay 100na ay yihiin 100kiisii hore oo lacagtoodu midna ay tahay 5,000 oo markii hore ka bixiyay iyo 175,000 $1,750 celcelis qofkaas 3 bilood wuxuu haystaa $11,175 oo faa'iido ah iyo lacagtiisii hore uu helay markii 10 qof ay ku neef isku darsadaan waa 100 iyo siyaado hadda waagi dhaweeyo tsunamigii waxa la iibiyay saan maqlay ilaa 100,000 oo neef 5 baa loo bixiyay 5 neef qofka la siiyay ama 20 neef waxba ma tarin haddii hay-adaha dawladdu ay qorshe u samayn lahayd hadda waxaynu ognahay xaqiiqa magaaladan gaalkacyo aynu joogno waxa lagu joogaa caanaha geel ganacsatadii oo dhan dukaamadii iyo bakhaarada inta iska xireen geel bay wada tabcadeen ninka geela haystaa marka maanta wuxuu ka faa'iido roon yahay ninka hoteelkaan haysta 10 halaad ninka haysta aniga iga maslaxad roon meel xooluhu ka dhaqanayaa meel lacag buu haystaa xirfadiisii dadka kala shaqeeyana wuu helayaa anigu marka waxaan qabaa dawladda iyo odayaasha iyo kulli in lagu dhiiri geliyo dadka dhalinyarada in loo sameeyo group 10 nin haddii 50 neef oo ariga loo gado oo mintira ah oo meel inta la dejiyo la yiraahdo warshadihii yaryar loo keeno waxay sameynayaan kareemkii waxay sameynayaan caanihii nadiifka wax walba ay imaanay dadka shaqo waa loo abuuri karaa waliba shaqo raqiis laakiin haddii taa la waayo oo qof walba uu yiraahdo administration iyo maamul iyo siyaasad baan baranaya waa waxa dadka madaxa isu galiyay aniga wiilasha hadda ii joogo aan dhalay xirfadan hadda aan sheegay midna iga yeelimi haddaanan anigu aadin tusaale yar waa keenaya hadda saddexda nin oo hadda wada fadhida suldaanka iyo shakiib yaani 10 sano ka hor magaaladan annaga dhalinyaro ka ahayno meheradaan ku lahayd meheradayda aniga wiilkayga dhaxli lahaa wiilkayga hadda jooga maalin walba waxaan ku diray rawarmaando cabaar iyo hoteelka joog suldaankii suldaan buu noqday oo isaga lafiisa gabasho ugu jiro xaajo kala u taal shakiib waa da'oon ninkayana maanta mihnad ilmihiisi ka dhaxlaan oo gacanta inta qabta uu yiraahdo waxaan iibi ma joogna hal nin oo da'diisu 50 sano gaadho oo saaka gaalkacay mihnad uu leeyahay ku haya oo ilmihiisi eheladiisi ugu yimaadaan malihin way aad ba mahadsantahay shakiib dhowr hal daqiiqo jamaalow anigu waxaan sida daraasadana aan ku soo qaadanay waxa weeye talada aan bixinayna waxa weeye marka u horeysa in bulshada iyo maamulka iyo dhammaan loo soo wada jeensado sidii arrintan xal loogu raadin lahaa isku duubnaan waalidiinta maanta ilmahoodii ay galayaan iskoolka oo maanta iskoolka bilaabay ilmahoodii 12 sano ka bacdi meeshaan aan joogno ama 8 sano ka bacdi soo gaaraya waa in wax loo quura arrintan in la xalliyo qodobka labaad waxa weeye in la helo iskool farsamo oo kan maxamed uu sheegay ka sanado badan inta lagu jiraya kana heer sareeya xag aqooneed iyo shahaadado waa in la hela sida hadda aan wadno waxa weeye in la helo xafiis shaqaalaha ay yimaadaan oo derbiyada ay ka akhrisadaan shaqadii bannaan shirkadahana waa u tagnay waxaana ka codsanay wax allaala wixii shaqo ay hayaan bal inay halkaa ku soo shubaan arrintaa waa arrin tijaaba waxaana ka bilowna gaalkacyo in dhallinyarada loo jaheeyo xagga badda in la sameeyo iskaashato maal laga ururiyo oo ayadu hormood u noqota sidii shaqooyin loogu abuuri lahaa dhallinyarada 3 arrimood oo jira oo dalkeenna uu u baahan yahay hadda in dadka lagu jeeyo dawladdan ka codsanaya dhowr jeer aan u tagay dawladda madaxda ugu sareysana waa kala hadal arrintan waxa weeye magaaladan gaalkacyo sanad hadda waxaan ka furnay iskool lagu barto cilmiga duulista oo maamulka iyo maareynta garoomada puntland 3 garoon cusub bay dhisanaysaa iyo ilaa 4-5 kale oo kuwa yaryara dadka in lagu habeeyo xagga badda
in farsamadii iskoolaadkaas oo ah ama kan duulista ha noqoto ama kan gaadiidka ha noqoto ama kan baddo ha noqoto xoogga la saaro arrintaa waa in loo soo wada jeensadaa waxaana rajaynaynaa daraastan iyo talo ururinteeda inaan gobollada kalena aan u gudbinno gobollada kaloona maqlayowna arrintu waxa weeye ceelna uma maqna cidna uma maqna anigu waxaan oran lahaa keliya waxaan u baahannahay national symposium looga doodo qadyadan oo lagu daraaseeyo lagu wada hadlo go-aamo kuwan ka waaweyn ay ka soo baxaan daraasadana saldhig looga dhigo barnaamijkii maan hadalna intaas ayaan kusoo gabagabaynaya taliya kulantideena dambe barnaamijka mid lamid ah taasuma doono waa Jamaal Faarax Adoob ku dhaafaya sidaas nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh على كل